doorasho yaa soo socota waxayna ka bilaabmaysaa xildhibaano in la soo saaro xildhibaanadaasoo mustaqbalka waddankan noqon doona qaabkii iyaga loo doorto iyo waxay keenaan iyaguna oo madaxweyne ah mas-uuliyadaas diinta islaamku aad bay u weynaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara wuxuu kaluu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mas-uuliya naga saara iyo dadka saaran dadka weli baan soo tilmaamay mas-uuliyan gaaraa saaran soomaaliya waxa weeye dadku waa qaxooti bay iskaga badan yihiin ama gudaha ha joogaan ama dibadda ha joogaan wuxuun baa la dhisay oo la dhoodhoobay maraaxil bay wixii soo mareen haddana uun kolley wuxuun baa soo kordhay sidii la rabayna ma aha marka waxaan u soo jeedinayaa dadka aan soo tilmaamo isamada cuqaasha nabadoonnada samadoonnada dadweynaha qolo kasta dadku waa qabaa'il dhinac baa u shiraysaa waxaa la rabaa xildhibaan in la soo saaro xildhibaanka in lagu soo saaro waxa weeye waxaa jirta mahmaa carabta ay tiraahdo bacdu shari ahwanu min bacdin haddii la waa in la raadiyo qof aamina oo ilaahay ka cabsanaya oo salaada tukada oo xaaraan aan cunin oo malaaluushan qaadanaynin oo soomaalinimadu ku weyn tahay in la raadiyo haddii la waayo ha la raadiyo qof soomaali ah oo wax kale haddii la waayo raadinaya nin madaxweyne ah oo dalka iyo dadka iyo diinta dhammaan ay ku nastaan oo qarannimo ka muuqato oo isaga maaragtay adeega ah aan dadka ku adeeganin ilaa waxa batay hadda dadkii dadka ku adeega isagoo halkii laga rabay adeega inuu noqdo inuu isagu dadka ku adeegto uu noqdo musiibo korka ka saaran inuu noqdo waxa in la baabi'iyo marka dadkaas xildhibaanka soo saaraya waxaanu leenahay oo soo jeedinaynaa kow ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada ummadani qaxooti waad ogtihiin Kenya in badan baa jooga muqdisho baadiyeega in baa jooga magaaladan hadda aan ku noolahay Boosaaso in baa joogto magaalo aan qaxooti lahayn oo Soomaaliya maanta ma jirto dadku waa qaxooti dadku waxay u baahan yihiin nin hogaamiye ah oo dadka amniga ka shaqeeya oo Soomaalida isu keeno walaal ka dhiga oo diinta islaamka difaaca oo qarannimada difaaca oo akhlaaqda iyo aadaabta ka shaqeeya oo wadanka ka dhiga wadan madax bannaan oo dibadda laga soo weeraraynin oo loo yeedhinaynin maxaan ku idhaahdaa mustaqbalkiisa iyo qarannimadiisa cid ku ciyaaraysa inay jirin nisaasaa la rabaa in la raadiyo marka mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay hadda maanta dadka xildhibaanka soo saaraya iyaga laftoodu hadday cunaan rishwo oo ilaaluush qaataan oo sida ay noqdaan dad xaaraan cuna ay noqdaan qolada soo saaraysa weeyo oo u shiraysa hadday noqdaan kay soo saarana xaaraan cun buu noqon ilaa waa ilaaluush ku soo baxaye waxaan u baahannahay marka shirka iyo shaaha iyo waxoogaa qadada dadka meesha isugu yimaadeen waa la siin karaa laakiin lacag inaan la siinin inaan hanti aan la siinin inaan ninkaas xildhibaanka la soo saarayo ilaahay isagoo laftiisu ka baqo oo aakharu u socdaaye barsakh buu tagay qiyaama ka horeeyo oo sakraatu mawd baa ka horeeye inuu lacagta joojiyo lacagtaasi waa laaluush khatar weeye ninka xildhibaanka hadduu laaluush ku soo baxo oo markaa sidaa uu ku noqdo xildhibaan isna laaluush ku raadin sababtoo uu hore u khasaaray khasaarihiisa uga soo kaabto oo maaragtay uga soo maaragtay bogsado waa inuu lacag raadsadaa xaaraan cun buu noqonayaa mar hadduu xaaraan cun yahayna ma keenayo nin madaxweyne ah oo shafaafiye leh oo ammaano leh oo soomaalinimo ku jirto oo dadka u naxariisanaya dad iyo dunyaba u naxariisanaya oo qiimaha garanaya qarannimada iyo dadnimada iyo israaca iyo Soomaaliyeedna israacin wayna walaal noqonna waraaba cunaya waa la goosani qaar baa loo goosanaya sababtoo badaa dheer hadday nagu meersano nicmada ah
dad haystaa ma jiro, dad badan baan haysanin. marka waa duulimaad baa laynagu samaynayaa, waa layna raadinayaa. waxaan marka naseexo u soo jeedinayaa odayaasha nabadoonnada isnada ilaahay ka cabsada. ninkaa xildhibaankeed soo saaraysaan reer heber ha ku soo saarina, xoolo badni ha ku soo saarina, ha ku soo saarinina hadal badni. waxaa ku soo saartaan diin iyo ilaah inuu ka cabsado, iyo inuu tukado, iyo inuu iska ilaaliyo xaaraan. ninka iska ilaalinaya ninkaasoo kale raadiyaan odhan lahaa. intaasaan odhan lahaa. sala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin. asalaamu calaykum.